waxaan ugu baaqaynaa baarlamaanka iyo madaxda dowladda in khilaafka hadda taagan lagu soo dabaalo wadahadal iyo is-afgarad loona hoggaansamo shuruucda dalka. labo, xisbiyada siyaasadeed ee dalku waxay walaac ka muujiyeen inuu khilaafka hadda jira dib u dhac ku keeni karo hanaanka horumarka iyo geed socodka doorashooyinka qof iyo cod iyo dhammaystirka shuruucda kale ee qabyada ah oo ay ugu horeeyaan sharciga doorashooyinka qaranka iyo dhammaystirka dastuurka. saddex, xisbiyadu waxay ka tacsiyeynayaan dadkii ku dhintay shaqaaqadii mudaharaadyadii ka dhacay Baydhabo koonfur galbeed, waxaana ugu baaqaynaa shacabka ku nool Baydhabo inay nabad ku soo dabaalaan deegaanka. afar, oo ugu dambeynna ah axsaabta siyaasadeed ee maanta ku kulmay hotel SYL waxay iska dhex xuleen guddi ka kooban 7 xubnood oo ka qayb qaata xal u helidda khilaafaadka taagan. liiska xisbiyada maanta ku shiray hotel SYL oo soo saaray baaqan waa 10 guud ahaan. kow, xisbiga xiis oo guddoomiye ka yahay Cabdullaahi Ilmooga Xirsi. Number 2, xisbiga u heli dadkaaga oo guddoomiye ka yahay Maxamed Bile Muuse. xisbiga 3, horumarinta guddoomiye ka yahay Saleemaan Yuusuf Cilmi. xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda oo guddoomiye ka yahay Salaad Cali Jeelle. xisbiga ammaanka, sinaanta iyo midnimo ololeynta oo uu xogeyo guud ka yahay Xaaji Shaahid Aadan. xisbiga Samadoon oo guddoomiye ka yahay Cabdinuur Maxamed Yuusuf. xisbiga ummadda oo guddoomiye ka yahay Cabdirashiid Maxamed Cali. xisbiga midnimo qaran oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad uu ka joogo kana qayb galay Ibraahim Salaad Dayfullah. 9, xisbiga Ilays ay ku matalaysay wakiil aan Fartuun Cabdiraxmaan Maxamed. ugu dambeyn, xisbiga midnimada Jamhuuriga Soomaaliyeed oo guddoomiye ka yahay Cali Maxamed Nuux Tumajile. intaas iyo war saxaafadeed ku dhayahay waa mahadsantihiin.